السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan suubinoonaa ilmaha qolkooda especially my teenager kids marka maanta waa hagaajintii ilmaha qolkooda maasha Allah aan itusaaya because winterka hadda lagu jiro darashadii iyo wixii dhan maasha ma arkina way soo shabaqa ina shabaqa ka qaadid oo little bit ma arkina maasha Allah baraf maasha Allah mareyka fiir baraf ashirno ay everywhere so wide marka insha Allah inta darashadii la furo ma arkina xoogay alxamdulillah lama faydo dadweyndo laga furo ma arkina maasha Allah biyihii iyo wixii oo ku meesha ku dhidida darashada markaas marka dadka maxaa la dhahayaa dadka neeftoodii marka isqabtaan iyo banaanka qabowgiisii waa isku dhacayaan aan darashadii hadda waa tiray little bit hore iga halawda wax yar hadaad tirtirin oo cabaara u kaadisid iskana gad waxay noqonaysaa wasakh marka insha Allah inta darashada iska furo fresh air in the morning wax yar ilmaha ka bixisid so today we're going to clean the kids room. It's very messy teenager-ka qolalkooda islaamaha marmar waxaan ka maqli jiray markaan galo ilmaha sararta hoosteeda biisada iyo qashinka iyo giliyaan oh my god hadii jir marka hore maxay ugu dhiibayaan u gilinaayaan I learned the lesson now aniga hadda maasha Allah telefoon la soo orda qolka cunto la soo gala everything looks maasha Allah weird. So I'm just gonna clean today hadii ilaahay idma soo watch the video. السلام عليكم خير بدنا نرجعنا waa dhameene finally banaanka diet marka bilaabay waxay ahayd maalin cad hadda habeen noqoto qorraxda si dhacayso ujeedino marka insha Allah waa dhameeyay I finish wixii waa tiray lama siidees unsiga bisa u haray people used to unsis wax yar carfisa ugu daaraya maxay ahayd insha Allah we finish qaanadii xaga u bedelay waa kala switch gareeyo is easy sometimes ma arkino ma zoom this wuxuu yararka u saaran flower yar ayaan ka soo gateen isaga saaran oo little bit Google u saaran isna sarab hey Google balay Qur'aan isna sarab isna gonna listen to me but masha Allah waa dhameynay meeshina tanna u soo gaday qaanada tanna u taalay mar hore hadda ka hor xirteen for the books marka bookyan ka bedelay insha Allah keedii aan u suubiyo qol kale taalay so they organized very nice. It looks beautiful all these books masha Allah my daughter akhriso she obsessed with reading kan meeshaan iska dhigatay halka xabo madow so masha Allah boogooda inta so they can read waxay boog rabeen iyo kalandaryaashoodii ay soo subsadeen around alhamdulillah and then we like go so alhamdulillah waa dhameena so bishiiba hal mar hadisaan looga dhigo ayanka xataa maanta masha Allah they so excited qolkooda qurux u noqday qashin ma lahan but it's not gonna stay like this guys I promise laba break bacd waxa arkay asagoo taraashu eg okay marka insha Allah alhamdulillah kan kalena waan itusaa insha Allah the other one oo ilmaha yarka qolkooda markaan dhameey marka qayr badan aan rajeenayaa assalaamu calaykum make sure you subscribe the channel-keena ku cusub tahay hadaa ku cusub tahay kalena welcome alhamdulillah marka we finish kaarbadkana marka saan kana u yaalay oo saan dheer u dhamaadaaba kan waxaan u dhigay yarkana meeshan u dhigay lugaha la dhiganayo inuu safta u noqdo ma arkina masha Allah is easy marka lagu u fiican yahay kana wasaqda because I'm trying inaan qolka kaarbadka oo guriga inaan ka ilaaliyo wasaqda insha Allah marka qayr badan aan irjeenaya assalaamu calaykum see you guys in next video.
Okay saxaabta soo dhawaada assalamu calaykum again marka today waxaan subinayo second room for the little ones insha Allah ilmaha yarka inta marka labadeeda gabdhood seexato ma sha Allah intana ma sana seexdo so waa u dhameeyay I organized wixii dhan that is toys ma sha Allah sariirtiisa xaga iska subi bastiis inta ugu laalaaba asaga intana gabdhaha kala iskala ma sha Allah waa dhameeyay marka for long cleaning ilaaha noo deesto ilmaha too much qashin too much stuff marka saan ii sheegay I just do every 3 months once in a while iska subiya ma sha Allah hadii ay qashin sometimes I tell them to clean ayanka u diraa alxamdulillah laakiin hadoo ogta sida hooyada rabta looma hagaajinayo marka insha Allah halkaana waa closet organize koodii oo boog iyo wax iskaga gurtaan iskuulka maadaama hadda oo xiran deedu wuxuu dhan wogooda dhan alaabta boog waxan inta iska saartaan marka ma sha Allah I just organize tied up a little bit meeshaan wiilkayga fishkiisa ku jira diyogaasiya we need to buy my friend marka insha Allah daayadu waa iska furfurna waa ogtiin saakay let me show you guys طبعا داير دكنا so always like to share with you guys banaanka I can see that much insha Allah marka I finish alhamdulillah close it waxas isku mataabanaay that will be next time insha Allah so all done alhamdulillah I'm finished samarka amastil I change to tire up a little bit and decoration ugu xiraad decoration waxba kuma xirna meeshaan babydeeda ku xarooto qolkeeda yariiska waaye ha tent nala ku jiri jirba hadana ma ku jiro marka ma sha Allah she goes in there markii xanaaqdo kala buuga iska akhrisata sometimes so let me see what is in there so little toys ku jiro alhamdulillah meeshaan way jeceshaa so she always clean it alhamdulillah because meel yare ayada markii xanaaqdo ku soo dhumato ama markii rabto private time iskaga baahan ilmaha sometimes she comes in here which is youngest teenager she's not baby but she's like enjoying high time in there marka insha Allah waa kaasa guys my cleaning kit room day insha Allah saasa usubiya let me know what you guys think and comment down below insha Allah inta nagu xirneen nagu soo darsama familkeena ku soo dhawaada insha Allah assalaamu calaykum qaar badan iyo rajayna iyo next video insha Allah bye